بسم الله الرحمن الرحيم. qorshaha qoyska waa maxay qoys? Qoys waa dad ka kooban laba qof, nin iyo xaaskiisa ama ka badan, carruur iyo dad kaloo la nool, kuwaas oo hal aqal wada degan. Qoyska waa aasaaska bulshada, waana bulshada koowaad oo la kulma canuga, wuxuuna ka qaataa door weyn oo muhiim ah koriinshaha canuga xag walbaba, kor ahaan, kasma ahaan, diin, dabci iyo dhaqan ahaanba. Guurka waa xasilooni naf ahaaneed iyo dhowrsani dhaqan ahaaneed, waxaana ka dhalanaya guurka inuu samaysmo qoys, kaas oo ah xil iyo mas-uuliyad xoog leh oo la qaadayo, sida bixinta dhaqaalaha reerka, habdhaqanka wanaagsan ee lagu wada noolaado, ilaalinta xaqa qofba qofka kale ku leeyahay, barbaarinta iyo tarbiyada carruurta. Diinta Islaamka waxay ku tilmaantay guurka iyo guri la aasaasay inuu yahay goob lagu xasilo. Sidaan ognahay, qoyska mar walba oo sii ballaarto waxa bata khilaafka iyo isqabsiga u dhexeeya labada isqabta. Waxa ugu badan ee taas keena waa qorshe la'aanta qoyska. Si mar walba loo ilaaliyo xasiloonida qoyska, loogana fogaado isku dhac dhexdooda ah, waxa u wanaagsan lamaanaha inay degsadaan qorshe ay isku waafaqeen, kaas oo taabanaya qaybaha kala duwan ee nolosha qoyska. Waa maxay qorshe? Qorshe waa dejinta sida loo agaasimi lahaa arrimaha soo wajahan ee mustaqbalka la xiriira si looga lib keeno ujeedooyinka la hiigsanayo. Qorsheyn waa hab muhiim ah oo la dejiyo ka hor howl walba inta aan loo tallaabo qaadin si ahdaafta la hiigsanayo loo gaaro. Qorsheyn waa xog la ururiyo iyada oo lagana baaraandegayo mustaqbalka waxa suuragal ah ee dhici kara si loo gaaro yoolka ugu dambeeya iyo hadafyada la hiigsanayo. Qorsheynta waa xirfad qaali ah. Qofka qabatima inuu noloshiisa dhan walba ka qorsheeyo wuxuu arkayaa faa'iidadeeda, waxaana u muuqanaysa inay ahaato qayb aan ka go'in noloshiisa. Qorsheynta wanaagsan waxay qofka u horseedaa horumar iyo libin howleed. Maxaan ula jeednaa qorsheynta qoyska? Qorsheynta waxay muhiimad weyn u leedahay qofka, qoyska iyo bulshada, waxaana lagu jaangooyaa geedi socodka nolosha dadka guud ahaan. Waxa qorshaha loo tixgeliyaa inuu yahay unuga ugu muhiimsan aasaaska guusha qayb walba oo ka mid ah nolosha. Qorsheynta qoyska waa nidaaminta iyo agaasinka arrimaha qoyska oo waafaqsan barnaamij xadidan si loo xaqiijiyo ujeedooyin iyo ahdaaf cayiman xilli go'an gudaheed. Qorsheyn waa nidaaminta fikradaha oo agaasinka howlaha in loo kala horreysiiyo siday u kala muhiimad badan yihiin, habaynta tallaabooyinka aan rabno inaan qaadno si aan u gaarno ujeedooyinka, yoolka iyo riyooyinkeenna. Waxa shaki ku jirin in qoys walba uu leeyahay ujeedo, riyooyin iyo aragtiyo mustaqbaleed oo u socda inuu gaaro. Qorsheynta waxay ka caawinaysaa qoyska inuu gaaro ujeedooyinkiisa sida ugu dhib yar, ugu dhow waqti ahaan, dhaqaalo badanna ku bixin. Qorshe la'aan waa fowdo joogto ah, fikrado soo booda ah, falal aan laga fiirsan. Qofka qorshe la'aanta waxa hagaya duruufaha la soo darsa una jihaynaya marba jiha cusub ilaa uu ku jahwareero nolosha. Waxa dhacda qoyska aan lahayn qorshe degsan, sida ugu mashquulsan yihiin labada waalid loolanka nolosha, waxay ka warhelayaan carruurtooda weynaatay oo qabatimay dhaqamo qaloocan, fikrado qaldan iyo dabeecado qallafsan. Xilligaasna xal ma laha oo ilmaha way xoogeysteen.